labadii cisho ugu dambeysay waxaa si aad social media ugu faafay taasoo aad loo hadal hayo ficilka uu sameeyay aktarka caanka ah ee Will Smith. gacanka hadal ayuu sameeyay markii nin kale oo caano magaciisa la yiraahdo Chris Rock uu aflagaadeeyay ambase uu la kaftamay xaaska Will Smith. runtii aad ayuu uga xanaaqay inuu sidaa foosha xun la xaaskiisa uu la kaftamay ninkan kadib dhankiisa intuu u kacay ayuu feer ku dhuftay. dhacdadaas cajiibka ah waxay ka dhacday xaflad loogu talagalay Oscar-ka oo si live markaa u socotay. soo dhow daawade waa anigoo ah Nadra Said. fadlan hanaga ilaawin inaad muuqaalkan share garayso sidoo kalena aad like saarto. Will Smith ayaa ah actor weyn ambase jilaa kusoo biiray Hollywood-ka isagoo aad u da'yar. markan wuxuu ka qayb galay ambase lagu soo casuumay xaflad loogu talagalay Oscar-ka. ninkan kale ee aflagaadeeyay xaaska Will Smith magaciisu waa Chris, isaguna waa jilaa sidoo kalena filin sameeye mararka qaarna waa comedian oo wuxuu jecel yahay fagaare kasta amba xaflad kastuu joogaba inuu dadka ka qosliyo sidii lagu bartay. Will Smith inna kamay filanaynin ambase qof kasta la yaab ayuu ku noqotay markii uu gacanta u qaaday Chris kaasoo eriyo ku turtuuray si jeesjeesana xaaskiisa ula kaftamay. haddaba ninkani muxuu ku yiri? Jada, I love you. G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. wuxuu ku yiri Jada oo ku jecelahay kadibna wuxuu u sii raaciyay kula sii kaftamay G.I. Jane. G.I. Jane dad badan may fahmin laakiin macnaha G.I. Jane waxay tahay waa filim soo baxay 1997. filimkaas waxaa matalaysay gabadh. aktarada filimka matalaysay ayaa sidii ay rag badan oo askar ugu dhex jirtay ugu dambeyn iyaduna madaxa ayay xiiratay. haddaba sababta ninkan uu u soo xasuustay filimkaas ambase uu u soo qaatay ayaa ah xaaska Will Smith inay dhukuran tahay. kadib isaguna wuxuu soo xasuusto kula kaftamay maadaama ay dhukuran tahay filimkii G.I. Jane. kamarada ayaa soo qabanaysa Will Smith oo qoslaya laakiinse xalka xaaskiisa oo aad iyo aad ay uga xanaaqday hadalkaas. daqiiqado yar kadib Will Smith ayaa dareemay xaaskiisa inay hadalka aad iyo aad uga cadhootay marnaba aysan ku farxin. isaguna uu u dulqaadan kar waayay maadaama ninkan xaaskiisii uu ka caraysiiyey. haddaba arrinka la yaabka leh ayaa ah Will Smith isagoo si deganaani ku jirto u soconaya ayuu wuxuu u tagay Chris. kadib feer aanu filanaynin ayuu ku dhuftay. runtii Chris aad buu u yaabay laakiin iskama waalin. isagoo wax xanaaqa aan muujinin ayuu qosolkiisa iyo sheekadiiba iska sii watay. kaftan ahaan ayuu haddana hadallo yar ku turtuuray si sarbeeb ahaana isagoo qosleeya oo lahaa yacni waan kaftamayay. Oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the out of me. xaaska Will Smith ee Jada haddaba iyadu sababta ay kaftankan u dhibsatay ambase ay uga xanaaqday ayaa ah in aysan iyadu dooranin sidan ambase dhukurnaantan marnaba aysan ahayn waxa iyadu ku qanacsan tahay balse ay timaheedii iskaga xiirtay sababo la xiriira dhanka caafimaadkeeda taasoo ku qasabtay inay timaha oo dhanba iska dhukurto. Jada oo xanuun kaga dhacay xagga timaha ayuu haddana ninkani sidaa ula kaftamay. Will Smith ayaa wuxuu muujiyay inuu xaaskiisa aad iyo aad u jecel yahay marnaba uuna doonaynin wax iyada dhibaya inuu arko. Wow, dude. Yes. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your mouth. I'm going to, okay? markii uu ka soo dhaqaaqay Chris ayaa isagoo yaaban baa haddana wuxuu si kaftan ahaan u yiri Will Smith ayaa feed igu dhuftay isagoo kaftankiisa dhex gelinaya. isla markiiba haddana waxa jawaabay Will Smith isagoo aad u qaylinaya ayaa wuxuu ku yiri afkaaga oo noocan ah xaaskayga magaceeda ma ku soo hadal qaadi kartid ka ilaali. Chris Rock ayaa yiri kaftan ayay ahayd laakiin Will Smith oo aad iyo aad u xanaaqsan aadna u qaylinaya caytamaya ayaa yiri xaaskayga magaceeda afkaaga ma soo marin kartid. It was a G.I. Jane joke. Keep my wife's name out your mouth. I'm going to, okay? arrinkaas isagoo fagaaraha ka dhex dhacay ayaa haddana waxa la yaab kale waxa weeyaan Will Smith waxa uu qaatay uu ku guuleystay abaalmarintii Oscar-ka. arrintaas kalena mid cajiiba ay dhammaanba dadka ku noqotay. markii Will Smith lagu soo dhaweeyay stage-ka kadibna uu fagaaraha ka hadlayay waxa uu bixiyay raaligelin isagoo markaas raaligeliyay akaademiyadda iyo welibana qof kastoo taageerihiisa ah kana xumaaday arrinkii ka dhacay goobtaas. balse raaligelintaas marnaba kuma darin Chris Rock oo muu raaligelin. haddaba daawada haddii aan su'aal ku weydiiyo Will Smith miyuu ku saxsan yahay arrinkan inuu xaaskiisa difaaco
difaaco goob kastuu ku sugan yahay mise uu ku qaldan yahay fikirkaaga nagula wadaag xagga commentiga waad ku mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan sidoo kale daawada nagu dhiirigeli inaad muuqaalkan like saarto lana wadaag asxaabtaada adigoo u sheer garaynaya. You got to be able to have people talk crazy about you. In this business, you got to be able to have people disrespecting you. And you got to smile and you got to pretend like that's okay. I want to apologize to the Academy. I want to apologize to all my fellow nominees. This is a beautiful moment, and I'm not crying for winning an award. It's not about winning an award for me. It's about being able to shine light on all of the people, Tim and Trevor and Zach and Sanaya and Demi and Ingenue and the entire cast and crew of King Richard and Venus and Serena, the entire Williams family. Art imitates life. I look like the crazy father, just like they said. I look like crazy father, just like they said about Richard Williams. But love will make you do crazy things. Being able to love and care for my mother and my family, my wife. I'm taking up too much time. Thank you for this honor. Thank you for this moment. And thank you on behalf of Richard and Oracene, the entire Williams family. Thank you. Hope the Academy invites me back. Thank you.